waxaan kuu hayaa dardaaran oo wax badan kaa beddeli dooni. hal dardaaran ku saabsan adeecida Alle. waan idin dardaarmi walaalahayow joogteeya adeecida abaalmaryaha Alle. 2 qiimaha wakhtiga. ha dayicin wakhtigiinna si aydan maalinta dambe uga shalaynin wixii idinka lumay. 3 faa'iidada dhalinyaranimada. guusha qofka waa dhalinyaranimadiisa, khasaaraduna waa gaabiska iyo dayaca. 4 adeecida Alle ee dhalinyarada. maxaa ka qurux badan dhalinyarada adeecda Alle? u dadaala cabsida Alle walaalayaal. 5 ku camiridda wakhtiga cibaadada. ku camira wakhtigiinna cibaado iyo xus Alle ilbiriqsi kasta iyo saacad kasta. 6 wakhtiga lumay iyo qoomamada. ruuxii lumiya saacad noloshiisa ka mid ah, qabrigiisa ayaa ku sugaya qoomamo. 7 digniinta dib u dhaca. ruuxii dhahaar waan yarahay, markaan ka weynaado ayaan Alle ka baqayaa. 8 toobad iyo isfahmid. wanaag ma leh midka aan toobad keenin yaraantiis kana wacyi ah ceebihiisa. 9 doorashada saaxiib wanaagsan. haddii aad rabto raacida Nebi Muxamed, iska fogaaw saaxiibada xun. 10 saaxiibtinimada iyo saamaynteeda. ka dooro saaxiibada midka toosan, maxaa yeelay saaxiibka ayaa saaxiibkii ku dayda. 11 saaxiibka wanaagsan waa daawo. la saaxiibida haldoorka waa daawo qalbiga, waxay kordhisaa firfircooni iyo xoog. 12 saaxiibka xun waa cudur. la saaxiibida jaahiliinta waa cudur iyo indho la'aan, waxay kordhisaa jirada qalbiga. 13 ku noqo mawlahaaga Alle. u noqda mawlahaaga insaanow ka hor inta aan wakhtigu kaa tegin. 14 digniin ku saabsan halmaanta Alle. midka halmaamay rabbigiisow, fiiri camal noocee ah ayaad la kulmi doontaa. fikirkaagu waa muhiim. nafaduuli ama nafaani. labadaba waan soo dhowaynaye. ilaawin follow, laak iyo sabskaraab mahadsanid.